waxaa markii labaad noloshiisa kacdoon huwaysan oo kalena dowladda Itoobiya ka wada buuraha Tigray janan ka tirsan militariga dalkaas sida uu qoray falanqeey la yiraahdo Alex de Waal taliyaha xoogga dalka Tigray General Tezan ayaa qoraaga ku tilmaamay mid ka mid ah raggii jiilkiisa Afrikaanka ugu wanaagsanaa dhanka istiraatiijiyadda militariga 68 sano jirkan ayaa sanadkii 1976 ka tagay jaamacadda Addis Ababa isagoo ka baranayay maadada biology-ga waxaana uu ku biiray kooxda TPLF xilligaas jabhadda ayaa dagaal kula jirtay dowladii Mengistu Haile Mariam qiimeyntiisii xirfadiisii abaabul sidii uu soo jiidan jiray kalsoonida dagaalyahanada ayaa ka dhigtay in sanado gudahood uu ka mid noqdo ragga ugu magaca weyn taliyaasha jabhadda May 1991 Jane Townsend oo hogaaminaya xoogagii TPLF iyo Eritrean taawacsan ayaa gacanta ku dhigay caasimadda Addis Ababa waxaana ay xilka ka tuureen Mengistu Haile Mariam waxa uu ku guuleystay in xoogagii TPLF ay qabsaday caasimadda ay sugaan ammaanka isla markaana ay ilaaliyaan kala dambeynta iyo howlaha dowladda saddex maalmood kadib markii ay caasimadda galeen 28 May 1991 waxaa si habsami leh mushaarkoodii loo siiyay shaqaalaha dowladda todobadii sano ee xigtay Jane Townsend ayaa hormuud u ahaa dib u dhiska ciidamada Itoobiya waxaana xilligaas loo dilacsiiyay darajada jaranaal waxaa dib ugu laabtay waxbarashadiisii asagoo shahaadada PhD ka qaatay jaamacadda Open University ee UK xilligaas waxay xaalad amni dari xoogan ka jirtay dalal ku yaala geeska Afrika janka ayaa sanadkii 1996 militariga Itoobiya u diray gobolka Gade ee Soomaaliya si ay ula dagaalamaan ururka Al-Ittixaad ee saldhigyada ku lahaa xilligaas gobolka Gado waxa kale oo uu si qarsoodi ah ciidamadiisii u geeyay gudaha Suudaan si ay u taageeraan jabhadihii ku kacsanaa Umar al-Bashir Jane Townsend ayaa muddo dheer aaminsanaa in madaxweynaha Eritrea uu halis muuqda uu ku yahay Itoobiya arintaas oo ay ku diideen qaar badan oo kamid ah hoggaanka TPLF jananka ayaa ahaa ninka qorsheynta u qaabilsan militariga Itoobiya markii uu qarxay dagaalkii uu dalkiisa oo la galay Eritrea 1998 waxaana uu ahaa dagaal ba'an oo ay ku dhinteen ku dhawaad 80,000 oo qof oo labada dhinac ah Jane Townsend ayaa doonayay in ciidamadiisa ay galaan caasimadda Asmara balse waxaa qorshahaasi ku gacan sayray ra'iisul wasaarihii xilligaasi Meles Zenawi dagaalka kadib waxa ay kala qaybsanaan xoogan soo kala dhaxgashay hoggaanka iyo sidoo kale Meles xilka ayay ka qaadeen Jane Townsend oo markaa ahaa taliyaha ciidamada Itoobiya in muddo ah waxa uu jananka la qabsan la'aa nolosha shacabtinimada muddo kadib waxa uu shaqo ka helay hay'adda UK u qaabilsan horumarinta caalamka sidoo kale waxa uu noqday ganacsade isaga oo warshad qamri ah ka sameystay magaaladii uu ka soo jeeday Ereyo ee gobolka Tigray qaybo kamid ah saaxiibadiis TPLF ayaa ku dhaliilay inuu soo dhaweeyay magacaabista Abiy ee 2018 uu ku noqday ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya waxaana uu sheegay inuu la shaqeyn doono sanadkii 2019 waxa uu qayb ka noqday koox ku dadaalaysay inay dhaxdhaxaadiso Abiy iyo TPLF balse waxa uu isaga baxay sanad ka hor isaga oo sheegay in ra'iisul wasaare Abiy uusan ka go'oneen inuu si nabad ah ku xaliyo khilaafka markii uu bilowday cadaadiska ka dhanka mas'uuliyiinta Tigray jananka ayaa waxa uu u wareegay magaalada Mukalle bishii November 2020 waxa bilowday dagaalkii Tigray Jane Townsend oo u muuqda inuu dhinac iska dhigay khilaafkii kala dhaxeeyay TPLF ayaa ku biiray jabhad iska caabin ah dhalinyaro badan oo ka careysnaa tacadiyada ka dhacaya gobolka ayaa ku biiray jabhadda waxa sidoo kale hub ka qaatay ragda ah oo horay u diidanaa nidaamkii TPLF dowladda Itoobiya oo jananka Israa'iil kale ku eedeysay khiyaano qaran ayaa amartay in la soo qabto jabhad iska caabin oo la magac baxday Tigray ayna kamid yihiin dagaalyahanada TPLF iyo kuwa kale ayaa dagaal kula jira ciidamada Itoobiya Jane Townsend ayaa kamid ah taliska dhexe ee jabhadda waxaana uu door muuqda uu ku leeyahay howlgalka militariga bishii January waxa uu janan ka sheegay in jabhadda ay xaaladda ku adag tahay waxa lagu baacsanayay buraleyda Tigray dagaalyahanada jabhadda waxa ay wateen hub fudud balse si la yaab leh ay ugu soo rogaal celiyeen ciidamada Itoobiya iyo Eritrea oo istaageersanaa jananka ayaa ka gaabsaday inuu sheego tirada dagaalyahanada ugu dhintay colaadda
muddo 4 bilood ah dagaalyahanada jabhadda ayaa isku garab waday tababar iyo dagaal toos ah. Jane Townsend iyo taliyayaasha kale ayaa go'aamiyay in xoogagooda ay si weyn isaga caabiyaan kooxda dowladda. 17 Juun xoogga TPLF ayaa qaaday duulaan dhinacyo badan leh, waxaana ay shaaciyeen inay cagta mariyeen qaybtii 8aad ee ciidamada militariga Itoobiya, sheegashadaas oo ay beenisay xukuumadda Addis Ababa. haddaba xaalka Itoobiya ayaa qasan, waxaana Janan aad u yaqaan ciidamada iyo sidoo kale dagaalka military ee Itoobiya ayaa dagaalka horkacaya, waxaana uu hogaaminayaa kacdoonka looga soo horjeedo Abiy iyo sidoo kale dowladda